Galdogo waa magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Mudug marka laga yimaado xarunta Gaalkacyo waxaana ay dhacdaa galbeedka gobolka Mudug 2 sano ka hor ayaynu warbixin ka diyaarinay magaaladan annagoo markaa diiradda saaraynay hor u kaca dhaqaale ee ay magaaladani samaynaysay 2 sano kadib Galdogo waxa ay noqotay magaalo saldhig u ah ganacsiga xuduudaha ka tallaaba ee gobolka Mudug iyo guud ahaan Puntland magaaladan kasakow inuu ku yaala kastamka Turdubi oo ah aag ay ku kala wareegaan shaqnadaha ganacsiga waxa kale oo ay magaaladani yeelatay garoon diyaaradeed oo shaqeeya garoonkan diyaaradeed kaliya ma adeegsadaan dadka degmadani ku dhaqan laakiin waxa ka faa'iideysta dadka ka imaanaya hawdka fog ee dowladda deegaanka Soomaalida wadanka Itoobiya haddii aynu fiirino dhanka kobaca bilicda ee magaalada warbixintan kuma soo koobi karayno haddii aynu raahno qaybtaas ayaynu ka shaqeyn karnaa waayo sanadihii ugu dambeeyay magaaladan waxay sameeynaysaa horukac dhanka bilicda iyadoo ay xarumo badan oo bilicda magaalada ay ku soo biireen magaaladani وفوتاني لي اسم كارين كارو قال تاريخ لا هي شرف كما كذا وديه تلقي مول تاريخ كورو وفوتاني لي اسم كارين كارو قال تاريخ لا هي شرف كما كذا وديه تلقي مول تاريخ كورو sidoo kale hadii aynu jaleecno dhanka waxbarashada degmadani waxay caan ku tahay sanad walba inay soo saarto dhalinyaro ku hubaysan aqoon karti ay ku lamaan tahay goobaha waxbarashada hadalkooda badah waxa ay degmadani leedahay kolleejiyo dugsiyo sare iyo jaamacado sanad walba soo saara kontameeye ilaa 100 arday ah intaasina waxa inoogu eg warbixintan kooban walow ay kooban tahay haddaba aan magaalada ka diyaarinay iyadoo markaasi dabka ay soo saaran yihiin warbixino inta ka badan oo ay wareysiyo aynu warbixinada dambe ka soo diyaarin doono warbixintan taabagelinteeda iyo codka intaba waa anigu Cabdiqaadir Axmed Caynaba ayaa halkan idinkaga soo gudbinayay waxaana si toos ah aad warbixintan uga daalcan karaysaan baraheena kala duwan ee Caynab TV inta barnaamij la mid ah ama warbixin la mid ah ku kulmi doono waa dhamaantay oo idin leh sidaas iyo nabadiin Caynab TV ka dhageyso wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka oo dhan barnaamijyo ku xiiso galiya iyo sidoo kale wararka ciyaaraha iyo xayeysiimaha hadaad igu khasabto on meeraysanay kubitay jaclaatay maba aan qadariyeen qof kale wuxuu